aniga waxaan ahay tagsile inaan qaado waa la igu qasbay naftaydan u baqay waa lagu dilaa hadii kala qaada leeyahay waxaan ilaahay ka cabsiina ilaahay ugu salliday waxaan ilaahay ka cabsiina waa laga cabsadaa halka waxaa ka bilaabatay maxkamadeynta shabakad loo haysto argagixisanimo waana koox ka soo gudubtay isticmaalka bistoolada una soo wareegtay inay isticmaalaan qoriga AK47 RPG F1 iyagoo ku carqaladeynayo baraha ciidamada amniga ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho waxaase kaaga sii daran kooxdaasi inay leeyihiin guryo gaari xataa waxay wataan dhakhtarkooda madaxooda maaliyadda hogaankooda zaadka waxaase cimrigooda soo gaabiyay 17 September sanadkan ciidamada aan muuqanay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cadow Axmed Calasow 54 jir markay yimid argagixisada laakiin ku laabtay waxa uu al-shabaab ugu xil saarnaa gaadiidka raaxada oo sidii taxi oo kale uu isticmaali jiray waxa uu garsoorka ciidamada qalabka sida ka hor cadeynaya kaalintiisa shabakadan iyo shakhsiyaadka gaarka ee dhaawac ahaan uu u geeyay xarumo caafimaad iyo guryo qarsoon oo ay kooxdu ka deganeed Muqdisho ninkan soo dhaawac huruwaan ka qaado waagii xasan ninka la leeyahay حسن إنك اللي هروان كقاعد ما طائي كانت هروان كقاعد ها وحن أوجي إنك أنا الدكتور هاي إنك أنا أوجي لي أنا أوجي وأوجي عبد الناصر عثمان نونو أو مجلس أفجرشد ويا معاد يا عيد مدى نبض سجد عن مقلة دجان حبط جد مريحان هو الوداك سبتمبر تضبيطه من كذي سنة كان kadib isku day ka fashilmay oo ay kooxdu ku carqaladeynaysa bar ciidamada amniga ee ilaala ka hayeen arbushaadka dagaal aad ah u hel saarnaan dagaal aad ah u hel saarnaa arbushaadka wixii dhacdadaasi ka dambeeyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa uu suura gashay soo afjaridda raadka qoyan ee baadi goobayeen ka qaybgalka arbushaadda uu sameeyay mucaad waxa ku geeriyooday Allah u naxariistay محمد حانشي فرح وحنا كنا وعمي سدح خفو كله وانا طلابدي كواد ee lagu soo afjaray koox abaabulneed oo ka dhisneed Muqdisho ilaa 2020 kooxdan waxay arbusheen bara ku kala yaala Balaagsi xoosh weydow X control afgooye xaafada galmudug macaani iyo jid mariixaan oo ahayd meeshii ugu dambeysay kooxdan lagu fashilay xasan cali xuseen ibraahim oo magaciisa afgarashadu yahay garaad waxa ku maqan qarash badan kadib dhaawac ka soo gaaray dilka Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cabduqaadir Cabdi oo ahaa askari ka tirsan militariga dilkaas oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Fagax iyo tiyaatarka Ladane June 18 sanadkan Cabdi Weli Sheekh Cali Muqtar waxa uu ahaa dhakhtarka kooxda sida degdega ah ku daaweeyo markay dhaawacaan ciidamada amniga xilliyada ay arbushaada sameynayaan waxa uu ku siisimaa isbitaalada kale ee Muqdisho ku yaalo haddii aysan jirin xad uusan waxba ka qaban karin وحسن أختار كفلا حالها دقدقة إبراهيم عبد الله محمد حسين وحو سيجارة وجوه إيديسينها بحين تلعق سيجارة لوجود ضبيب حسن علي حسين قرعت وحنا نحمر تسيد حكون $1 ماذا حق صند شبكتنا يكوه إيديسينها هاي عبد الله الشيخ محمد هلولة وحو اسنه مجان جليه داوعي بدن أو يكوحده وصود درتي وأنا متكمل فرهايا حفظها قرصون ويكوحده كجدو متمقدشو xaafadaha ciidamada amniga ee furahooda la wareegeen kadib fashilkii shabakadan ayaa kala ah gubta uu Cabdullaahi hay furaheeda iyo xaafado kale sida Alxayaad Ceelasha Ciise Cabdi Oodweyne iyo Cali Turcaaye aadan nuuno Maxamed Kabiila iyo Dahaba Cabdi Cusmaan Maxamed waxay aanay safka kaga jiraan kaydinta hubka iyo daryeelka maleeshiyaadka soo dhaawacmay gabagabada kiiskan oo la keenay dhibanayaal ciidamadii amniga ee la kulmay dhacdooyinkan baarayaasha u xil saarnaa kiiskan ay maxkamaddu dhageysatay waxay dhinacyada si siman u weydiiyeen su'aalo waafaqsan habraaca dacwadda maragyadii maxkamadda loo hor keenay maxamed cabdullaahi khaliif xeerlaali ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday inay ku kala xukumaan eedeysanayaasha hadba xaddiga dembiga ay kaga jiraan shabakadan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafka leh shabakadan waxay halis ku yihiin jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed sidoo kale shabakadan waxay halis ku yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo dhiigooda waxay sidoo kale halis ku yihiin amniga gobolka Banaadir mudan gudoomiye garsooreyaal maxaa yeelay waa dad subaxii markay soo kacaan inay qof dilaan dhiigga muslimka inay daadiyaan ay subaxii u soo kacaan
bini aadanku arsaaq u doontaa subax iyaga intaa kadib waxay soo doontaan inay qof muslina oo dhiiggiisa ilaahay xaaraantimeeyey ay dilaan iyagoo isticmaalaya hubkan iyo agabkan aan ku soo bandhignay maxkamadda horteeda mudan gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafka leh annagoo ku kalsoon cadaaladda maxkamadda annagoo ku kalsoon go'aanka garsoorka waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanaynaa inay ku xukunto eedeysanaha koowaad iyo labaad dil toogasho oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah maxamed xaashi faarax iyo marxuum ekis dable xooga cabdiraxmaan cabduqaadir cabdi axmed qareennada ayaa ka codsada maxkamadda inaan isku qodob ciqaabeed laga dhigin eedeysanayaasha ururka al-shabaab inay ka tirsan yihiin mar haddaysan qiraal ahayn waxaa muuqata oo cad in ay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed ee aanan wax dembiya ee maxkamadda lagu hor keeni kara aysan jirin si waafaqsan qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta oo tilmaamayo wixii aanan faldembiyeed ahayn aysan u aqoonsaneen xeerka ciqaabta inaan cidna xurriyaddeeda looga qaadi karin xafiiska xeer ilaalinta waxaa laga rabay markhaati caddeeyo in dahabo al-shabaab tahay inay maxkamadda horteeda keenaan ma keenin qof caddeeyo inay dahabo al-shabaab tahay ma jirto qiraal garsoorka uu ka qoray dahabo ma jiraan wax hub ah ee lagu soo qabtay dahabo waxaa keliya ay u eedeysan tahay dahabo waxaa ku qabay xasan intaas keliya u eedeysan tahay sidaas darteed mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda ka codsanayaa in dahabo cabdi cismaan maxamuud iyadana xorriyaddeeda la siiyo wakhti ku filan dhinacyada kadib maxkamadda ayaa looga fadhiyaa go'aanka sida dhinacyada dacwadda uu sheegay gabagabadii fadhigan gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhegaysiga dacwadda dhanka ka ah 8 eedeysane ee maxkamadda hortaagan halkaas ayay ku gabagabowday maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso maxkamaddu waa noo xiran tahay cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho